laba nin ayaa waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow saaxiibo aad isu jecel saaxiibo aan marnaba kala tagin ee aad iyo aad isugu dhow mid ayaa waxa uu lahaa xaas midna waxa uu ahaa doob aan wax xaas ah qabin laba nin oo aad isu jecel oo aad saaxiibo ahna way ahaayeen waxa dhacday inkii doobka ahaa ee bilaa xaaska ahi ay isjeclaadeen xaasku qabay ninkan saaxiibkiis ah xiriir ayaa dhexdoodii ka bilowday saaxiibkiisna ma oga waxa ka dhex socda saaxiibkiisii dadka ugu dhawaa dadka ay isugu jeclaayeen iyo xaaskiisa waxa ka dhaxeeya garan mayo waxa dhacday inay ku heshiiyaan xaaskiisii iyo saaxiibkiis inay maalin guriga ay ku kaliyoobaan oo ay labadoodu guriga isugu soo haraan saaxiibkiis ayaa waxa ay xaaskiisii bilowday inay ninkeeda safar dheer u dirto si ay isaga iyo saaxiibkiisii iyadu guriga isugu soo haraan safarkii bay diyaarisay waa uu baxay ninkeedii waxa uu socdo ayaa mar uu jidka marayay waxa uu soo xasuustay furo uu lahaa inuu guriga uga soo tagay wuu soo laabtay gurigii buu yimid albaabkii buu gargaraacay waa laga furi waayey ay uu lahaa ayaa gurigii ka dhex qayliyay markastoo uu garaaco albaabka aygu qayladiisu waa sii darnaanaysaa xoog ayuu aygii uu lahaa uu u sii qaylinayaa marba marka ka dambaysa qaylada aygu way sii kordhaysaa mar allaala marka uu guriga garaaco ugu dambayn waxa uu jabiyay albaabkii guriga marka uu galay gurigii markii uu galay laa ilaaha illa allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa uu arkay saaxiibkiis dadka ugu dhawaa iyo xaaskiisii oo korka iska fuushan waxaase uu arkay aygiisii oo agtiisa taagan mise saaxiibkiis iyo xaaskiisii waa dhinteen nafti waa ay ka baxday waxaana dilay aygiisii aygu wuxuu difaacay sharaftii ninkii lahaa ayuu difaacay ninkii baa ku qayliyay hoogaygiyey saaxiibkaygiina kii dadka iigu dhawaana ma sharaftaydii ayuu ii daba maray aygii aan lahaana hadda waa aygii aan lahaana sharaftaydii ayuu difaacay hoogaygiyey waa qiso aad u la yaab badan bini aadanka waxaa ka suurtowda waxyaabo badan oo aan ka suuroobin xayawaanka waa qiso aad iyo aad u cajab badan muuqaalkana like iyo share taabo siina share garee aad baad u mahadsan